in ka badan 500 oo qoys oo ku barakacsanaa tuulada Baarey kana barakacay fatahaadii webiga Shabeelle uu ka geystay tuuladaas ayaa la gaarsiiyay deeq raashin iyo daawo isugu jirta taas oo ka timid dowladda Hirshabeelle. Madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaana qaybinta raashinkan qayb ka ahaa, isaga oo sidoo kalena ugu tagay indhayn iyo kormeeridda xaaladda dadkii fatahaadda ay saamaysay. U tagista qoysaskan ku barakacsan tuulada Baarey ee gobolka Shabeellada Dhexe ma ahan wax fudud, waxaana madaxweyne Cali Guudlaabe Xuseen si uu ugu taga dadkaasi uu sii raacay dooni yar oo dhex maraysay webiga, taas oo la'aanteed aan loo gudbi karayn dadkan fatahaadda ay saamaysay ee ku barakacsan doon ku yaala jiinka webiga Shabeelle ee tuulada Baarey. Qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa u mahad celinaya madaxweynaha dowladda Hirshabeelle, waxaana dhinaca kale ay dalbadeen in isha lagu hayo. waxaan u mahad celinaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen oo maanta soo booqday iyo wafdi balaaran oo la socdo. waa u mahad celinaynaa maxay dhahaan Cali Guudlaabe Xuseen boqodaa halii ay baxday ilaa hadda asaga ayaa gacanta ku hayo sidii soo gaartay madaxweynaha anagoo macna ku goobaabay imaataankiisa nasiib wanaagna maanta ilaahay un baa noo keenay alxamdulillah. ilaahay maanta iskale madaxweynaha Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe qar Allah siiyo adduunyo aakhiro wax weyn oo abal noo qaban jiray haddana noo qabanaa madaxweyne jiraan Allah ka dhigo. madaxweynaha Cali Guudlaabe waa mahadsan yahay, waana soo booqtay guriga buqda waxadeeda alaabteedana isugu akeeni haddaana waana soo booqday waa u mahad celinaynay madaxweynaha Cali Guudlaabe kor alla anaaga dhigo. Cali Guudlaabe Xuseen madaxweynaha dowladda Hirshabeelle ayaa ka sheekeeyay dhibaatada haysata dadkan, waxaana uu sheegay inay mudan yihiin in gargaar degdega loo fidiyo inta Hirshabeelle karaankeedana ay u samayn doonto. waxaan baaq dheer u diraynaa cid kasta ee gacan ka geysan karto dhibaatada meeshaan ka jirto oo isugu jirta dhibaato nololeed, mid caafimaad iyo mid cunto iyo biyo iyo guud ahaan ummaddan meeshay ka geli laheeday roobka da'ayo iyo qorraxda iyo kaneecada. xaqiiqdii waxaa taalla meeshaan dhibaato bini'aadanimo midda ugu cusleedaa taale cid kasta oo wax awooddo inay la soo gaarto dadkaanaan ugu baaqaynaa, hadday tahay hay-adaha caalamiga iyo hadday tahay kuwa lokalkaaba in wax lala soo gaaro, hadday tahay dowladda dhexo iyo hadday tahay dadka muxsiniinta ilaahay wax siiyey oo gacantooda wax ku jiraan. runtii meel wax lagu bixiyo meesha ugu khayr badneed waaye. dadkan xaaladooda meeshay joogto waa dad noloshay ku nool yihiin markaad aragto aad dhihi karto xaqiiqdii dadkaanu xaalad adagay ku jiraan. waxaan leenahay cid alle ciddii wax la soo gaari karto haba yaraata inay la soo gaarto, in ilaahay adduunya aakhira labadaba ku liibana. waxaan leenahay dadka waxaystow meeshaan xaaladaa ka jirto, annaguna insha Allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan awoodno waxba kama hagarsan doonno. maanta waxaan u keennay xoogaa raashina iyo xoogaa daawaa iyo agabkii roobka laga geli lahay wax ka mid ah, laakiin wax badan kama taraan oo dhibaatadu aaday u baaxad weyn tahay. waxa aan keennana ma kala gaaraan. waxaan leenahay cid allaale ciddii wax gacanteeda ay ku jiraan waxaan leenahay ummaddan ha loo soo gargaaro. allah wax gargaaree ilaahayna ha ka bixiyo. runtii ciddii wax sadaqaysaysa meesha ugu habbooneed waayay nolosha ka jirta tuulada Baarey iyo tuulooyinka kale oo ku dhadhaway biyuhu ay hore u marteen. waa dadan xoolo u soo fayn, waa dad gurigoodii iyo wixii ay haysteen biyihii qaadeen ee geed hoostiis fadhiyo. hooyo maaragtay cunug gacanta ku hayso ama uur leh ama nuujinayso ee roob ku da'aayo geed hoostiisna joogto. waa dareemi kartiin kaneecana ay habeenkii cunayso xanuunka ay leedahay. cid kastee wax awooddo ha ku sadaqaysato ummaddaanaan leenahay. ilaahay ma aragtay iigana ummaddaana dhibka Allah ka qaado. runtii waa ugu mahad celinayaa, dadaalkoodana waa guubaabinayaa dadaalka ay muujiyeen akhyaarta tuulada ee labada tuulo odayaashooda ee Baarey iyo Geeda Barkaan isku duubnida iyo dadaalka ay dadaaleen. markaan u keenna agabkii wax lagu xiraayay oo loor leh oo qalabkii birta ahay leh oo alwaaxi leh oo muxuu ahay xararkii leh siday ayaguna xoogooda ay u noola garab istaageen. runtii waa ugu mahad celinayaa. guud ahaan waxaan ugu baaqayaa cid kastee wax awooddo ha la soo gaarto tuulada Baarey iyo tuulooyinka ku hareersan. kaliya kuma aysan barakicin fatahaadda webiga Shabeelle uu geystay
dadka ku nool tuulada Baarey balse in ka badan 25 tuulo oo ku teedsan degmada Jowhar iyo nawaaxigeeda ayay saameeyeen biyahan dadkoodiina ay barakiciyeen. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City.